الرحيم إلى سبحانه وتعالى معله وبركة يا برنامج كني ما أنت waxay ka taaban doonaa xasuusta qofka waxyaabaha hoos u dhiga iyo sida loo kobciyo qooxa dhacda marka qofku inuu wax akhriyo ama qofka in wax loo sheego inuu wax fahmo deedna marka waqti kadib marka la weydiiyo qofka xasuusan waayo marka saameyn qofka maxaa kale dhowr qodob aynu isleegi doonaa sidoo kale xasuusta qofku waxyaabaha uu korinayo inuu isleegi doonaa qofka xasuustiisa oo yaraata qodobada saameeya waxaa ka mid ah hurdo la'aanta ama hurdo yaraantu waxay keentaa qofku inuu mataqaanaaye ay xasuustiisu yaraato ama wax badan xasuusan waayo qodobka labaad ee keena xasuus yaraanta waxaa ka mid ah warwarka ama qulubka qofka hadduu warwarsan yahay ama uu deganay wax badan ma xasuusto waxaa laga yaabaa wax uu markaa waqti ka hor xasuusnaa haddii la weydiiyo inuu xasuusan waayo marka qulubku isna wuxuu ka mid yahay waxyaabaha xasuusta qofka yareeya waxaa ka mid ah waxyaabaha xasuusta yareeya muuqaalada aan fiicnayn oo qofka oo daawada hadday yihiin markaa kuwo diin ahaan aan banaanayn iyo hadday yihiin markaa kuwo kalaba muuqaalada markaa aan fiicnayn oo qofku daawado waxay keenta xasuustiisa qofka inay yaraato waana wax markaa aqoon ahaan la tijaabiyo oo dad fara badan oo markaa sayniseen ay ka marakaceen muuqaalada aan quruxda badnayn aan fiicnaynin qofka xasuustiisa inay yareeyaan waxaa kaloo iyadana xasuusta yareeya waxyaabaha maandooriyaha ee qofku uu isticmaalo dadka qaar waxay kusoo daraan sida buuriga iyo sigaarka iyaga laftooda wax la yidhaha xasuusta qofka way yareeyaan oo way dhimaan ama hoos bay u dhigaan qodobada noocaasi waxay ka mid yihiin waxyaabaha xasuusta yareeya xasuusta ay markaa qofku hadday ku yaraato siduu qofku kobcin kara way kala duwan yihiin waxyaabaha xasuusta lagu kobcin karo xasuusta waxaa lagu kobcin karaa oo kamid ah qofka isticmaala cuntooyinka sida khudaarta oo kale kuwa fitamiinada leh kuwa markaa qofka wax u soo celiya qofka hadduu isticmaalo markaa xasuustiisa wax laga yaaba inay soo noqoto waxaa kaloo idin soo celiya biyaha badan oo biyaha jirkeena inta ugu badan oo ka kooban yahay biyo marka biyaha badan waxay soo celiyaan markaa qofka xasuustiisa ama inay xasuustiisa waarto ayay keentaa waxaa markaa xasuusta lagu soo celin karaa waa markaa xasuusta qofka oo badata keeni kara lagu kobcin karaa qofka oo shayga ku celceliya haddaad shayga ku celceliso waxaa dhacaysa markaa in xasuustaada markaa badato kulba shaygiisa aad ugu celcelinayso ayagoo markaa keeni kara oo qodobada ugu horeeya ahaan lahaaba cibaadada ilaahi subxaana watacaala cibaadadu waxaa la yidhahdaa qofka waxay kobcisaa markaa xasuustiisa aad bay u kobcisaa waxaa iyadana kamid ah xuska ilaahi subxaana watacaala qofka markasta ilaahi xasuusan xasuustiisu qofka kalena ilaahi xasuusnayn laba mid maaha aad buu markaa uga doon yahay waxaa kaloo iyadana kamid ah waxyaabaha xasuusta waxeeya dikriga ilaahi subxaana watacaala hadday tahay salaada hadday tahay soonka cibaadooyinka kala duwan markaa waxyaabaha qofka xasuusta u soo celiya markaa weeye waxaa kaloo kamid ah qofka oo xifdiga markaa badiyo oo aad wax u xifdiya shaygana markaa fahma waxaan jeclahay inaan intaan kusoo koobo aad baad u mahadsantihiin